cunug 6 sano class 6 aan soo dhiganin ina lagu keeno standard 7 ageysid war ma ogtahay aqoonta adduunka 12 sano macna dare inaan looga dhigin oo research ay ku base garaysan tahay ilmahaas ay soo deynay jaamacad imaanayaan cunugi waxa ku imaanay 14 years old he is sitting in the first semester war inteeno wadin war 4 sano cunug jiro 15 sano cunug jira jaamacad soo fadhiisaysan problemkaas ma ahan dawladda ma aha federalka iyo stateka ma aha problemkaas bulshada waay iskoolka waay maamulaha waay aabaha iyo hooyaha ilmahaas dhalay waay xaqa laga galaayo ilmaha xaqa ay ka galaysiin refrain from it otherwise you will regret war cunugan aan systematically aan science u soo qaadanin marka dhaysid secondary la geynaa wuxuu ka bilaabaa chemistry physics and biology oo kala baxsan oo qaadanaa marka dhahdid hala yaabin at some point cunugaaga oo waalan hadaa aragtid hala yaabin because wax culays ah uusan qaadi karin madaxa laga gelinooya adna waa daba taagan tahay adi may artay form 1 ije artay ani waaba ko dhiibay form 1 waaba kijay meel wal ambarada waaytay adi taasa waa ku dhaga hadla ilmihi waa isqasba laakiin wixii potential ki ma hayo awoodi ma hayo because base ki ma u dhisno waalidiinta xaqee ilmaha ka galayaan oo saas u hadlaayo ayaana wax islaam waxa isku aragnay meel harqaane waxay tiri gabarteeda form 2 ay dhigataa 12 sano waa jirtaa waxaan dhahay ayadoo 2 sano jirta ma iskool geysi ana baabiyaa marka idinka ogtiin walaalihiin qaarkood ama ilmihiin same way sameeyeen idinka u sameeyeen cunugiyo da'yar waxa dhahdeen ama aan dhiganin systemkii caadi ah aan raacin lacag iyo waxa ka dhiibteen qof taqaanida la hadasheen 7 hal geeyo 8 hal geeyo heblow hal geeyo waxa laga fikiraa ciyo dhameena ciyo shaqeela $200 oo keena ama $300 oo shaqeena mu ku xisaabtantay 300 iska dhaafe markuu waashto adi inuu problem oo ku ahaan doono wali ma dhicin laakiin cunugaas oo aan nidaamkii soo marin oo meel iskaga tuurtay jaamacad kasta ka baxo quality-ga cunugaas oo yahay tayada oo cunugaas ka sameeysan yahay maxay tahay very poor marka yaa sameeyay federaalka ma keenay dhibkaas waxbarashada state-ka ma keentay ma idinka hay gacmihiina ku abuurateen ma oho haahe $2 heshay waxa tiri qof musuq maasuqa laakiin challenge kale waxa u geysana dadka rabo in la amaano directoriyaasha iskoolka oo shaqooyinkaas amal waalidka intay dhihi lahaayeen cunugan waxaan ma sameeynayo ma loo sameeynayo si fiican jidkii fiicnaa hamaro intii la dhihi lahaa cunugii waa la wada meel la iska geeyna war waalidiinta qaarkood waxbarashada waxay tahayba ma ogo marka waxa loo baahan yahay adaa waxa tahay focal point-igi qofka kugu soo hormari waay orientation fiican tell the parent the reality xaqiiqda u sheeg cunugan waxaan ma wadi karo dhibaatadaas iimaanayso waxa iimaanayo u sheeg u sharax qofkii waxa ma yaqaano waalidiinta qaarkood ma yaqaanaan qaarkoodna ayagoo og ay sameynayaan kuwaas waa u bareereen iska dhaaf laakiin waxay ka soo baxaysaa quality-ga cunuga wax la baraayo ee ka soo baxaysaa by all means hadhow wuxuu gaaraa heer shaqo iyo meeshii la rabo laga siiyo dadka asaga ficiisa wax ma la qaybsan karo because a portion of the mind is empty of the basics qaybta maskaxda qayb ka mid ahaaba eber wixii lagu shubi lahaa 1 2 3 4 5 6 wixii lagu shubi lahaa ka maqan